gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka saaxil maxamed axmed xasan baashe iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaas wadaniga ee gobolka saaxil ayaa maanta shir jiraad ay ku qabteen xafiiskooda magaalada Berbera xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay inka xukuumadda ay ka mas'uul tahay mudaharaadada ay dhigayaan shaqaalaha takada Berbera kuwaas oo kaga soo horjeeda shirkadda DP World ee xukuumadda Soomaaliland ku wareejisay takada magaalada Berbera sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa sheegay in shacabka Soomaaliland xisbiga wadaniga hore digay heshiisyada ay soo galayaan xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiintan oo hadalka u kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waa ogeydeen oo waxa lagu wareejiyay shirkaddii DP World la yiraahdo dekada magaalada Berbera ama marsada magaalada Berbera markii runtii ay dekadii la wareegtay wax xukuumadii oo meesha matala oo joogo oo shaqaalihii dadkii rayidka ay ka shaqeynayeen meeshii shirkaddii systemka ay ku wada shaqeyn lahaayeen wax ka xog bixiya ama barasaaf ha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto may dhicin kaloo ay magaalada Berbera jooga maanta wax ka badan 100 shaqaale oo ajnabi ah oo Senegal leh oo Pakistaniin leh oo Hindi leh oo Masaari leh oo loogu talagalay in la joojiyo dhammaan qaybta maxay operationka iyo qaybta MT-da oo lagu bedelo iyaga waa u soo murmursi la doonayo in loogu soo mursado waxaan wax ka boox looga joojinaya kolba meel loo taabanaya waa sidii mar qoro looga saari lahaa dibadda waana laga saaro way dhacdo kuwa maanta dibadda jooga iyaguna ay gudaha joogaan maanta way hambaleenina si culus ay ugu soo horjeesteen waliba waxaan leeyahay xaajoodada leedin galiyeen ayaa leedin qarinin waxa weeyaan hadhow way kaga xumaan doontaa hadii kale maanta halka ka taagantiin ka taagnaada golaha deegaankana waxaan leeyahay waxa weeyaan maanta waa arkaysan xaaladda halkii taagan tahay wax loo baahan yahay si dhab uga dareen celisaan nimankii lahaa shuqulada malabka laga leefi doona ay noogeynay dabada ka riixiyeen wareejinta dekada Berbera shacabkuna waxa leeyahay shacabkuna maanta way idin barteen idinkuna waa arkaysaan waxa dhici doonta hadii ay xaafado qadaan oo ciidi meel ay ka shaqeysan la waayo in idinka gurihiina la idinku soo daadan doono waxa laga saxay oo aan anigu akhriyay warqad ay ku taalo in shaqadii laga joojiyay dekada Berbera maalintii ay DP World la wareegtay waxa la wax xuquuqa iyo xaqa oo aad ku leedahayna aanay tagi maayay doorta sax waxa weeyaan khiyaamo ayaa shaqaalaha lagu sameeyay oo caddaana oo ay dawladdu samaysay sirka madaxtooyada oo kilaanina shaqo waaymayo shaqadu way badanaysaa way sii kordhisay waxa weeyaan inta imika ka baxday oo kaliya ayaa 270 shaqaalaha leeriya qorshe fog baa meesha ku jira xisbiga wadana in badan buu arrinta ka sanaaday uu ka hadlay shaqaalaha Berbera dekada Berbera ee mudaharaada ee qaylinaya ka soo gooray shaqadii marka aynu ka hadalno waxa weeyaan horta shaqaalaha xukuumaddu iyada foojiriga samaysay xukuumaddu iyada foojiriga samaysay iyada cidii ay meeshan ka kireysayna wax ku leeshiisay shaqaalana wax gaar ah u sheegay dambena cidii ay meeshan ku wareejisay iyo dadkii shacabka ahaa ee masaakiinta ahaa ee shaqaalaha way u kala baxday ilaa iyo hadda la garan maayo cid lagu wareejiyay shaqaalihii imika ayay yaabihiin cidda meeshan haysata ee la wareegtay iyo cidda lagu wareejiyay waxaan leeyahay shaqaalaha ha u baqina cidna ha ka baqina xaqeena iyo xuquuqdeena ba ka hadla ummadda reer Soomaaliland garabkeeda ku siinaysa waa idin ku badbaadinaysaa bilowgii markii la bilaabayay dekedan iyo xaaladeeda xisbiga wadaniga uu ka soo horjeestay taa maanta taagan buu arkay sida fiinta ayuu uga qayliyay wax iman doonana wuu sii ifiyo wuu sii sheegay marka lama rumaysan oo wax loo arkay nin iska mucaarid oo iska hadlaya laakiin lixajacalada wadanka haysay waanu tilmaamayay maantana tii uun bal arkay shaqaalahan dibadda loo saaray ee banaanka taagan waa kuwa dekada dhisay dekada cusub ee aragteen ee dambe eemilka tooradu buuxaan yaa dhisay muddo 6 bilood ayay dhisayeen xoogooday ku dhiseen hantidooday ku dhiseen cid kama caawin yaa ka yaarin jiray iyaga shaqada dekada yaa dhisay nimankan maanta laga saaray baa dekada dhisay tii ay dhiseen iyagu ay xoogooda iyo dhididkooda ku bixiyeen ayaa la maanta ka baxa oo dhaaf bisay oo dekada ka iibisay iyo hantidii ummaddu ay lahayd DP World haday ka iibisay dhiiga iyo lafaha iyo muruqa shaqaalahana miyay ku tartay kuma darina kuwaas iyaga ku yaaleen iyaga la lugaynaya waa kuwa wax isaga celinaya codkoodana waa taageeraya maanta codka ay sii daayeen waan taageersanahay sida u dhan
diiq carab Saleebaan telefishinka caalamiga ee Kalson TV magaalada Berbera.